xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa si baan hoos ugu dhacay toddobaadyo markii uu weerar ka dhacay caasimadda Muqdisho lagu kharajiyay saraakiil sare oo gacanta ku hayay galka arrimaha Soomaaliya iyo xubno ajaanib ah oo dhinaca Abu Dhabi u ahaa xubno gaar ah sida loo maamulay baaritaanka dhacdada la xiriira isfaham waaga gudiyo laba daraf ah iyo wafdiga ugu dambeeyay ee ka yimid Imaaraadka oo ka niyad jabay taageerada ay siiyaan Soomaaliya ayaa kalifay inay hadda soo baxaan dhacdooyin muujinaya xaalad labada dhinac ay ku sii kala fogaanayaan inkastoo la xaqiijinayo in wali dhammaad xaajadu aysan gaarin. Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay in Dubai ku sameeyo taageerada uu siiyo dowladda federaaliga ee Soomaaliya si aan muuqan taasoo u badan dhaqaale uu ku bixiyo taageerada ciidamo gaaraya kumanaan askari kuwaas oo la diiwaan galiyay kadib dib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh May 2022. ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho. waxaa hadda banaanka u soo baxaya macluumaad aan baahinay bilo ka hor oo ku wajahnaa sida ay labada dhinacba daacad isugu sii ahaan karaan xilli qaar ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh ay u arkaan Imaaraadku inuu yahay mid aan dhankooda dooq wanaagsan u ahayn ficilada ilaa hadda muuqda ee la qaaday sida ay ogaatay Geelan Media labada dhinacba waxay hadda qaateen jihada ah in la kala aamin baxo. Imaaraadku waxa ay wali sii wadaan su'aal gelinta lacagaha ay ku taageeraan ciidamada ay tababartay saaysiinta iyo amaradooda sida loo maamulayo. waxay sidoo kale bilowday in dib loo eego dhammaan askarta tababaran halka ay asalkooda ka yimaadeen taasoo ay ka dhalanaysa tallaabooyin in la kala saaro. dowladda federaalku kuma faraxsana in jihada la aado sidoo kale in su'aal laga soo celiyo sida dhaqaalaha loo maareeyo iyana waxay u aragtaa dhinaca fiila Soomaaliya jiha aan sax ahayn maadaama ilaahay heshada ay dhinacyadu gaareen uu yahay mid mugdi badan ku jiro oo aan la horgeynin golaha shacabka ama laga doodin ka bixitaanka ama ku jiridiisana aysan dowladda federaaliga ee Soomaaliya wali mowqif cad ka qaadana. guddi gaar oo ka socday Imaaraadka oo kadib weerarkii xarunta Muqdisho tagay ayaa u sheegay madaxda dowladda federaalku inaysan sii wadin karin dhammaan taageeradooda haddii aan la helin nidaam la isku raacsan yahay oo barax tiran laakiin geedi socodka la xiriira isku dhex jirka aysan hore u soo wada aqbali karin una baahan yihiin in dhammaan hawlaha dhinacooda loo dhaafo ama ugu yaraan la helo si wanaagsan oo taageerada labada dhinacba ay uga wada faa'iideysan karaan. qaar ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh waxay dhawaan ka sheegeen madallo dadaalada ay ugu jiraan helista saaxiibo u bedela dhinaca Imaaraadka Carabta kuna taageero dhaqaale. wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya iyo madaxweynaha oo safarro kala duwan ku tagay dhowr waxay ku soo hungoobeen dowladda la xiriirtay in la siiyo dhaqaale ay ku socodsiiyaan danaha siyaasadeed ee fiila Soomaaliya. safarradan waxaa la xaqiijiyay in dhinaca Imaaraadku aysan farxad gelin ha yeeshee hadda warar soo xoogaysanaya ayaa sheegaya in heshiiska Turkiga ay la gashay dowladda federaalku ay dhinaca fiiladu raajicinayso inuu ka waaciyo kamaaranka dhinaca Imaaraadka taas aan la ogeyn sida ay dhab u noqon karto maadaama xukuumadda Ankara aan looga baran inay dhaqaale toos ah sida dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida halka dalalka khaliijku inta badan ay isticmaalaan lacaga aan marin nidaamka dawliga way siiyaan madaxda xukunka joogta taasoo la aaminsan yahay inay dhaawac ku tahay dib u kabashada dowladnimada Soomaaliya. maalmo ka hor wafdi ka socda Imaaraadka oo tagay Muqdisho ayaa gaarsiiyay madaxda dowladda federaalka dhammaad ka yimid madaxda sare ee Imaaraadka oo si baan u diidan heshiiska ammaanka badda ee dhexmaray dowladda federaaliga iyo Turkiga. wararku waxay sheegeen Imaaraadku uu la wadaagay dowladda in aad uga xun yihiin dhaqanka madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo in Turkiga loo gacan geliyay gabi ahaanba arrimaha ilaalinta badda taasoo ay ku tilmaameen in wiiqaysay heshiidii hore u dhexmaray Soomaaliya iyo Imaaraadka ee la xiriiray iskaashiga amniga qaranka ee labada dhinac. maxay Imaaraadka Carabtu taraan dowladda Soomaaliya inkastoo lagu kala ardidu wanaan kara jawaabta su'aashan haddana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu yihiin dal walaala oo muhiim ah ay gacanta ku hayaan oo ay bixiyaan dhammaan wax kasta oo ku baxa ciidamada ilaalada xoogan ka haya amniga caasimadda haddii la waayo kaalmada ay ciidamadan siiyaan Imaaraadka sida loo qaabaynayo ilaa hadda dowladda federaalku aragti xoogan kaba leh mana haysa bedel rasmi ah sida ay cadeynayeen ee wareedyo ka tirsan isla kooxda madaxweynaha. saaxiibada madaxweynaha qaar ka mid ah qoysaskiisa iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa deegaan rasmi ah ka dhigtay Imaaraadka waxaana heleen deganaanshaha dalkaas gaar ahaan ciqaamada loo yaqaan midda dahabka waana xaqiiq in madaxda sare ay guriga ka heleen Imaaraadka waxayna ka mid tahay waxyaabaha ay tareen dowladda federaaliga ee Soomaaliya sida ku qoran diiwaanka caawinta Imaaraadka ee Soomaaliya. dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo imaanshaha madaxweyne Xasan Sheekh xukunka waxa la rumaysan yahay in dadaal xoog badan ku bixiyeen Imaaraadku
oo ay qayb ka noqdeen u ololeynta wareeggii labaad markii la joogay dharaarihii 15 May iyagoo la dagaalamaya dhinaca kale madaxweynuhu xukunka fadhiyay oo ay u arkayeen inuu danahooda ka soo horjeedo Imaaraadka Carabta oo laba saxiix oo ay ka heshay Xasan Sheekh hadda kula joogi kartaa in Imaaraadku ay saaxiib u sii ahaadaan madaxweyne Xasan Sheekh taageeradooda dhaqaalana ay sii wadaan waxa la aaminsan yahay inay ku bedelan karaan laba saxiix oo muhiim u ah dhankooda iyo istaraatiijiyadda amnigooda qaranka kuwaas oo ay ka helaan dhinaca dawladda federaaliga ee Soomaaliya xoogaalka dhacdooyinkan ayaa sheegaya inay madaxweyne Xasan Sheekh u fududahay inuu bixiyo saxiixyadan taas bedelkeedana uu sii haysto taageerada dhaqaale ee Imaaraadka Carabta ay ciidamada siiyaan laakiin haddii ay waqti qaataan heshadan cusub waxa cabsi laga qabaa in xiriirku uu dhaawacmo ka hor halkaana ay ku joogsadaan dhammaan taageero badan oo Imaaraadku xilligan uu siiyo dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh